soo dhawaada saacadaha fooda inagu soo haya siyaasadda dalka hawadaaba isku shareeri doontaa waxaa dalka ku soo food leh madaxdii hore ee dalka oo iminka mucaarad ah waxayna la kulmi doonaan mucaaradka gudaha halka waxaa ka qabsoomi doona shirar ay ka soo bixi doonaan go'aano adag oo wax loogu sheegayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisaan derbi isku garaac ah waxaa la weydiin doonaa wadar ogol iyo dhaxda soo dhig iyo Soomaaliya halkeen u guurinaa annagoo wada soconna lama garan kara marka madaxweyne xasan ma tanaasuli doonaa sidii madaxweyne farmaajo mise kambaala ay baashan aadi doontaa oo Soomaalida Yoweri Museveni ayaa dhaxdhaxaadin doono ma garan karno waxaan rabaa inaan kula wadaago soo dhawaaw saaxiibada la wadaag oo sheer gareey inaan soo raacdan isku day aragtidaada inoo reeb waa maadsan tahay berri madax ayaa soo gaarayso iyo bilowga isbuuca fooda inagu soo haya wararka ka imaanaya marka magaalada Nairobi Istanbul oo Turkiga ah iyo Muqdisho oo dalkeena caasimad u ah fadhiyada siyaasadaha lagu gorfay waxay sheegayaan in madaxdii hore ee dalka soo maamushay ay tagi doonaan magaalada Muqdisho iyagoo meelo kala duwan ka soo dhoofaya kuwa gudaha fadhiya ayayna la kulmi doonaan ayaa la leeyahay waxaa kamid ah oo berri ragga imanaya siyaasiyiinta imanaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo uu la socdo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Umar Cabdirashiid iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan waxay isku shubayaan Soomaaliya diyaarad u sii saaran yihiin berri oo mucaaradkii la balansan yihiin iyaguna waa mucaarad dabaan maalinka Isniinta iyo Axad ama bilowga isbuucan waxaa la soo warinayaa in magaalada Nairobi iyaguna ay ka soo qulquli doonaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare Saacid Shirdoon xildhibaan ama murashax hore Cabdiqaadir Cosoble gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal iyaguna waxay ku sii socdaan magaalada Muqdisho halka waxay kula balansan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ee gudaha joogta hadii ay ahaan lahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dabcan madaxweyne hore Sheekh Shariif iyo dabcan inta gudaha ku sugan waxayna halkaasi ku qaban doonaan shir horudhac ah kadibna waxaa la isla aadi doonaa shir weyne saamileyda siyaasadda ay ku gorfayn doonaan kuna soo saari doonaan go'aano dalkan wax looga qaban kara horumarintiisa madaxweyne xasanna wax loogu sheegi karo beesha caalamka wax loogu sheegi karo doorasho wadar ogolaahna lagu aadi karo nabad iyo caanana bulshada u noqon karta shir weyne ah ayay qaban doonaan beesha caalamka iyo dabcan waxay dhihi doonaan inta madaxweynaha hadii laga helo waa wada shaqeyn karnaa ha loo sheego ama annaga ha naga qaato isku soo wada duub marka guud ahaan waxaa muhiimadu tahay in siyaasiyiinta mucaaradka ay isku fahmaan doorashooyinka la rajeynayo madaxweyne xasanna loogu sheego wadankan iyo sidoo u yaalay sida wax looga qaban karo inay sidan tahay ee inay sidan ahayn kii aqbala Allah ka dhigo talada dhaxda mid soo dhiga Allah ka dhigo mid nabad ku dhameeyo Allah ka dhigo mid tanaasul badan Allah ka dhigo ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inta oo wanaag aynu nooga dhigo inaysan noqon mid ajaanibta ayna soo dhaxgalaan Kampala iyo Nairobi iyo Ethiopia loo qaado oo Soomaaliya hadda wax kale loogu soo dhismay inay waa fahmi kartaan u maleynayaa bal soo dhaweynta bariha laga qayb qaato madaxweynahana loo sheego aadan cadda la duqeynayaa xeradii ciidamada dhamaaya la qarxinayaa adiga lagu qarxinayaa mudane madaxweyne ma awoodid mana kartid mana weeka Soomaaliya mid doorasho qof iyo cod dad safar gelin karta xaaladda dalka amniga waa noocaas dhaqaalihiina waa garanaynaa marka bulshada hajaha wareerin mudane madaxweyne siyaasiyiinta la fadhiiso teendhadaadii aad calafkaaga soo qaad waliba waxaan kugu la talin lahayn inaad iska fadhiisato maadaama laba teeram fashilmatay odo Soomaaliyeed oo wax qaban waayay gaariga wadi waayeen aad tahay waxaan ku rajeynaynaa inaad shaqo kala raadsato ama aad nasato oo retire aad gasho inagoona waa ku xuseynaa madaxweynihii hore ee dalka ee fashilmay ee nadaadiyay ee 10 sano nagu cunan ku aqoonsanaynaa meel kasta kugu aragnaan oo ku salaameynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in adoo kale uusan siyaasadeena ka dhig waa maasantiin aragtidiina iigu reebo hoos inta dambe waa aragtideyda